Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka dalka Mudane Mahdi Maxamed Guuleed oo ka carooday isku shaandhayn beena. Master Mahdi ayaa ka carooday isku shaandhaynta beenta ahayd oo baraha bulshada lagu faafiyay, taasoo sheegaysa in golaha wasiirada xukuumadda nabad iyo nolol isku shaandhayn lagu sameeyay xilka ra'iisul wasaare ku-xigeenkana loo magacaabay Maxamed Cabdi Xayir Maareeye. Wariyihii ra'iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed Maxamed Yuusuf Bakayle ayaa dacayad been abuur ah ee la soo dhoodhoobay oo uu maalgelinayay ra'iisul wasaare ku-xigeenka Mudane Mahdi Maxamed Guuleed ka faafiyay wasiirka ganacsiga iyo warshadaha Maxamed Cabdi Xayir Maareeye. Dacayadaha uu faafiyay wariye Bakayle ayaa bilowday kadib markii dhawaan baraha bulshada lagu faafiyay warar sheegaya in ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka loo magacaabayo wasiir Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, taas uu aad uga carooday Master Mahdi. Ugu dambeyn taas oo kaliftay inuu maalgeliyo dacayada raqiiska ah oo wariyihiisa gaarka ah uu dadka ku maran habaabiyo. Waxyaabaha uu fidiyay wariye Bakayle waxaa ka mid ah in wasiir Maareeye taageero Somaliland iyo inuu weli ku xiran yahay damu jadiid, laakiin wasiir Maareeye kusoo jiray siyaasadda 20 sano ee u dambeeyay waxaa lagu yaqaanaa nin wadani ah, hadal cad oo jecel horumarka iyo midnimada Soomaaliyeed, isla markaana daacad u noqda hadba tiimka ama madaxweynaha markaasi talada dalka haya. Haddii uu shalay ka mid ahaa dowladdii Xasan Sheekh, daraadna in uu ka mid ahaado xukuumaddii Tayo uu hogaaminayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu markaasi ahaa ra'iisul wasaare. Fikradda Maareeye uu ka qabo dib u soo celinta midnimada iyo wadajirka Soomaaliya waxa ay ahayd mid had iyo jeer soo jiidanta kumanaan shacab Soomaaliyeed ee ku sugan Somaliland iyo koonfurta Soomaaliya. Waxa uu leeyahay taageerayaal fara badan, waxaana sida laga rabo hogaamiye siyaasadeed ee hoggaanka laguma noqon karo inaad mushaar iska qaadato oo aanad wax fikir ah iyo talo ah ku biirin mustaqbalka dadka iyo dalka aad siyaasad ahaan u matasho.